الرحمن الرحيم. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الذي سلام على يرضى إن هل كانت إسكوجو تمت مهد جارة يا ذي علينا أنت هنور على يراه أو إسكوجو جرى قبلي ويل إن أنهر إماضو فرحة أيه تهاي أو ما أنت أودي أرسل إن يدلك وحكسو كرديان أقوم تودي وحبر الشدود إن يكروا قاضا. هذا الذي كجم هاد علينا فرمرك أسمين إنسان. أولاً ومهسنته waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kambaniga Go Turkey oo wax badan ku soo kordhisay dhalinyarada Soomaaliyeed ama hamigoodii wax ka bedeshay ayagana waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo anoo ku hadlaayo codka maamulka gobolka Banaadir dhamaantiin waxa idin leeyahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka wax ku soo kordhinayo aad ayaan u soo dhaweyneynaa waana ku faraxsanahay maanta inaan meeshaan aan iskugu imaano annagoo ka hadleyno wax horumar ah dhalinyarada ku soo kordhinaysa waad ogtihiin dhalinyaro boqolkiiba 75 ayaa tihiin haddana qaarkiina badan maanta waxaan dareensanahay inaad u soo jeesateen inaad waxbarasho dalka dibadiisa aadaan ama gudihiisaba aad ku barataan wallahi dhalinyarada wiilashii gabdhaha kala ma yareystaan waxaan dhiirigelin baaxad leh u celinaa ama mahad gaar ah waalidiinta ku dadaalay awlaadaaneeti maanta wax baray maanta waxbarashadooda inay meeshaan ka sii wadaan ay dalka gudihiisa ama dibadiisaba ugu diyaar garoobeen waalidiinta dhibaatada dadka awlaad wax ku soo barteen waxaan leeyahay maanta jahliga waad ka dadaasheen aan idin leeyahay sababtoo ah haddaad aragto wadan dhalinyaradeedu wax baratay waa wadan horumaray horumarkaaseeti waxaa iska leh waalidiinta idinku dadaalay inaad ku dadaashaan idinkana juhdiga idin nila geliyay ama dhaqaalaha nila geliyay waxa laga yaabaa hooyo Soomaaliyeed aanan maanta aan awoodin in iskuulka siday kugu geysay ama xaaladday wax kugu soo bartay aad dareemi kartiin aysan awoodin bisha markii la gaaro lacagta laga rabo iskuulka ama jaamacadda aad ogtihiin xaaladda ay ku keenayso ayadoo qaarkood jidka caanaha ku gadaayo qaarkood jaad ay gadaayaan qaar miis nyaanyo ay gadaayaan gabadha Soomaaliyeed gaaska iyo dhuxusha gadayso oo wiilka soo saartay ama gabadha soo saartay hamiga ee leedahay waa horumar waxay rabtaa inay la jaan qaado dalalka adduunka hooyooyinka Soomaaliyeed ee daalay qalbigooda maanta waxaan leeyahay maanta meeshay filayeen ama waxay dareensanayeen ayay heleen dhalinyaro horumarka dalka ka qayb qaata dalkan idinku ayuu idin sugayaa waxa barateen dib ugu soo celiya ha noqonina kuwa saaqid ah jidad ka taagan ama kuwa ka dhacay balwada dilatay oo maanta aad dareemi kartiin facebookyada haddaad fiiriseen ayagoo isduraya magaalada joogo inaad soo celisaan isku daya inaad dhaqan celisaan isku daya inaad horumarka dalka tusaan isku daya dareenkaas ha idin wada galo maahan inaad shaacisaan oo facebookyada dhigtaan wiilkaas hooyaa dhashay ku dhibaateetay maantana markay aragtay dhibaatada uu ku jiro ooyneys la ooyo hooyooyinka Soomaaliyeed dhalinyarada u dhaqan celiya bara waxbarashada naqda macallimiin xaafadaha ka shaqeeya dhalinyarada waaniya darbiyada ugu taga dhalinyarada soo celiya maahan kan xun la adeegsanayo fikradaha qaldan loo sheegayeen dhaqan celiya waa dareemi kartaa saaxiibkaaga meeshuu aadayo waad ogtahay saaxiibkaaga wuxuu qabanayo waad ogtahay wanaaga tusi saaxiibkaaga sida aad u wanaagsan tahay aadaan idinkaga mahad celinaa shirkadaaneetina aadaan ugu mahad celinaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dalka aan walaalahanahay oo wax badan gobolka Soomaaliya oo dhan wax ka qabatay ee dalka Turkiga oo dalka ugu horeeyay markay dhibaatada nagu dhacday waa dalka ugu horeeyay noo soo gurmaday maanta dalkaaseet inuu yahay Soomaali ayaan dareensanahay sababtoo ah fiisadeeda dhaqsiyaan ku heleynaa markaan tagna soo dhaweyn ayaan heleynaa waxbarasho ayaan ka heleynaa caafimaad aan ka heleynaa keena dhiban maanta wadanka wax ma loogu qaban karo la yiraahdo waxa la yiri intee la geynaa dalka Turkiga ma leh dalka loo la geeyo waa dalka labaad aan leedihiin markaa tagtaan isku daya waxbarasho haddaad u tagtid waxbarashada aad u tagtid inaad ilaalisid meesha aad joogtid inaad ilaalisid dadka la joogtid inaad ilaalisid aad isku dhaqan noqotaan oo wanaagaas aad ka shaqaysaan kuwa qaarkood inta waxbarasho ku baxaan meesha dalkaas markay tagaan ay diidaanna ma annaga waxaan rabnaa in wadankan laga waayo wax jaahil ah
ama qof aan wax aqoonin in laga waayo Soomaaliya inay noqoto dalka ugu horumarsan waxbarashada waa inaan iska dhaadhicinaa horta sideen ugu baxnaa dhibaatada waxaan ugu bixi karnaa inaan wax barano isgacan qabano horumarka ka shaqeyno maanta aan noqono dad midaysan wax bartay aan la shaqeyno dalalka walaalaha garabka nagu siinaayo horumarkeena ka shaqeynaayo aan annagana ilaalino keenana aan ilaashano waa mahadsantihiin aadaan ugu faraxsanahay gabdho badan oo maanta nasiibkooda uu noqday nasiib qurux badan wiilal sidoo kale nasiibkooda oo qurux badan helay qof kastaba nasiibkiisa ayuu maanta meeshaan ka qaatay nasiibkana waa calafna waa cajiib nin walba calafkiisa ayuu cunayaa cid kale ka qaadamayso waad ku mahadsantihiin inta guuleysatay dhammaantiin wada guuleystayaal ayaa tihiin sida la sheegay waana ku mahadsantihiin sidaad ugu soo qayb gasheen waana ku mahadsantihiin sidaa u feejigantihiin gabdhaha Soomaaliyeed inaysan ragga ka liidanin waad u jeediin guryaha waa ka soo baxnay waxaan ugu soo baxnay dalka inaan horumar gaarsiino waxaan ugu soo baxnay inaan wax badan ka bedelo waxaan ugu soo baxnay hooyada Soomaaliyeed shalay wax soo baran maanta awlaadii wax bartay inay dalka wax ka bedesho imtixaanka gabdhaha iyo wiilasha waad aragteen wax badan kala ma dheero inta soo barmoostay iyo inta fariisatay waa imtixaanka marka gabdhooy waxaan idin rabaa gabar wax baratay waa bulsho wax bartay ku soo kordhiya bulshada waa idin mahad celinaa dhammaan waxaan u mahad celinaa si gaar ugu mahad celinaa kambaniga ugu soo cusumay meeshaaneeti good to Turkey aadaan idinkaga mahad celinaa maanta meeshaan in meel laga maqnaado maahan ninkii nasiibkiisa noqon waayna waxaan leeyahay ka fiirsada saxaafadda facebookyada meel walba yaali meel laga maqnaan karo ma dhalinyarada dhiirigelintooda aadaan dhalinyarada idin salaama wassalaamu calaykum waraxmatullaahi